qaarna waa ila wanaagsanayeen qaarna ilama wanaagsaneen waxa kamid ah qaarka ila wanaagsana markii waa marka dhul aan inagu Afriqiba shuqul ayna ku lahayn oo ka hadlayay ay kamid ahayd xataa Falastiin iyadoo waxaad ka warantaa dadkii shir weynaha fadhiyay madaxda ahaa ee kala madaxweynayaasha khusuusan waxaan u adkaystay maadaama aan askari ahaa 50 iyo dhowr sanadood askarinimadii aan soo maray awgeed baan meesha ku ilaalin wadaniyadii waayo markaygii hore annagaan markaan askarta ahayn qabiil iyo waxaasna maanan aqoon sidii baan u haddana waxaad la socotaa meelo badan oo askari haysan inay badbaadiyo aan tan keliya ahay meesha waxaa ka socday dagaal sokeeye dad walbana meeshu hayay qabiil baa dadka loo wada haystay qolo walba meesha haystay bilaqaysatay halkaan marka waxaa aniga la ii keenay si aanan qabiil aan u bilaqaysan ee aan ka hor joogsado keligay ma ahayn rag kalena waa ila joogeen oo haddaba wasaaradda jooga hadda laftigeeda oo uu ka mid yahay cabdi qalaf iyo cabdilaahi xasan diirshe raggaasna korkayga ilaalinaya anna furahan hayay waxaa dhacday marka inay timid markii dambe kala tag markii qabiilka iyo wixii lagu kala tegey haddana dadkii gaajaa looga cararay meeshii waxaan u far adeegnay bal inaan la sugno bal in dowlad la helo iyo ummad Soomaaliyeed israacsan halkaana lagu kala tegey oo gaajo looga tegey oo baqatin looga tegey baan ku u cararay odaygay inaan bal Soomaali aan gaarsiiyo hantida halkan taala intii laga bilaabo maalintii aan imid ilaa hadda ana gacanta ku hayay waxa lagu soo kordhiyay ma jirto hadda oo leeyahay waxa la bilaabayaa rogitaan mooyaane hadda cajaladaha qaar waxaad arkaysaa kulayl u gubay muxuu ahaa haddii qaboojiye uu ku jiri lahaana wuu badbaadi lahaa cajaladaha waxaa weeye hadda meesha yaal boqolkiiba 80 waxay ka fiican yihiin rogitaankan hadda digitalka ah oo haddii biyo ku da'an iyo haddii muxuu ahaa kulayl dareeban aan midna xumaanayn way yaallaan dareenkii aad u fiican yahay hantida haddii lasii badbaadinayo oo kolleyba sida adduunka uga dhacdaba waxa boqolaal sano jiray baa hadda ilaa hadda la hayaa annagana waa ilaa 51 markaanana intaasoo Soomaalidu intay jirtay inay sii joogaan awgeed yaan ugu faraxsanahay haddii wax laga qabanayo shambaana afraga iyo gabadh makiinadaha noo yaallay waa kuwii hore oo duugga ahaa oo laba xabaa marka hal cajal oo kuwa waaweyn xabadda waaweyn kanoo kale ah waxaan duubayaa hal saacna waxaa laga dhigayaa 7 marka hore waxay ahayd 3/4 marka dambana 7 baa laga dhigayaa kabacdina 10 cod oo 10 barnaamij oo halkan ku jirta ayaa 10koodii haddana la kala jaraya markay ugu yaraato waxay qaadanaysaa halkaas cajalad 2 saac iyo bar ilaa 3 saac horta dhalinyaradu Soomaalidu meel kasta baa joogeen suugaanta way jecel yihiin dhegeysigeeda dad wuxuu jecel yahay suugaantan dambe oo hadda la tumo qalabkaan iswada oo la waa casri dadna waxay jecel yihiin wixii hore labadiiba anagu waa wada haynaa marka waxaan ugu baaqi lahaa inaan sii dayn suugaanta iyo taariikhda iyo culture-kan ay Soomaalidu dabeecadda ay Soomaalidu leedahay dhaqankoodii inayna sii dayn ay
horey ka wadaan oo ay wax kaloo hadda ay alifaan wax cusub oo kale sinantu waxaa la isku dayey in furaha laga qaado aniga shakhsiyan bambo gaajada laga baxshay ninkii gaajada ka bixiyo rabo inuu qarxiyana soo hoosta ka galo waxaa labadeedaba aan wada qaraxno markaa kabacdi iga joojiya bambadii furaha waxay rabaan inay waxa cajaladahan intay qaataan ay lacag ku baadi doontaan oo suuqa ka gataan waayo idaacadaha ka furnaa raadi muqdisho bal inay waxaan bililaqaystaan awgeed ayagu kama fakerayn waxaan hantidaani waxay isleeyihiin shilinka maanta aad ku qadaynaysaan aad heshaan waxaan filayaa hanti soomaaliyeed inay tahay intaan halkan ku hayeyna aan u hayay soomaalinimo anigu isma lahayn adaa leh laakiin ummadda soomaaliyeed baa iska lahayd waxaanan gaarsiinaya jiilka dambe si aan u baabiin wixii hore dhaqanka iyo hiddaha iyo wixii halkan ku jira wax sugaan nooc walba ilaa 51dii wixii halkan yaalay ayaa u badbaaday jamhuuriyadda soomaaliya hadda ilaad samaysan saldhiga tidhaahdaan sukay madooba sugumayno nolol waan ninku sugay garkuu dhigay